الحمد لله رب العالمين إلهي ما محل سيدا شيغان ما يركي دغمدا iyo bada saabka gobolka Sanaag waxaynu joognaa inuu dhagax dhignay gurigii martida gurigii madaxtooyada ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo marka koowaad Ilaahay baa mahadle mar labaadka waxaynu u mahadnaqaynaa Ibrahim Axmed Kuutiye oo muwaadin dhaba oo qarankiisa wax weyn u taray gobolkiisa Sanaagna wax weyn u taray dadka dhulalka badan xeertayna waxaynu leenahay waa halka Ibrahim dhige oo gasii dhawaataane idinkuna ku daydo danta guud u istaagayna wax ka qabataan runtii dhagax dhigan iyo mashruucan weyn waa mashruuc aad u weyn qadar lacageedu 400 oo kun iyo dheeraad ah ku kacaya waa guri dhismihiisa iyo tayadiisa iyo muuqaalkiisaba la kaysiinayo oo loo kaysiinayo baaxadda uu gobolka Sanaag leeyahay iyo martida faraha badan ee gobolkan iman doonta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu halkan safarka ku yimi waxyaabihii ay maamulka gobolka iyo degmadu ay hordhigeen ay u sheegeen ay ka codsadeen ayuu gurigani ka mid ahaa madaxweynuhu isagoo taa ka jawaabaya waynaga maanta dhagax dhignay tan keliyana ma hayne dhowr qodob ayay maamulka gobolka oo daruuri gobolka weydiiyeen garoonka diyaaradaha ka mid ahaa qandaraaskiisii waa la bixiyay xafiisyadii baa la dayactiraya deerkiina waa lagu xidhayaa ballantaa uu ka soo jawaabay madaxweynuhu tanna waynaga maanta u taagan jaamacadda Sanaag ayay ardayda iyo maamulka iyo gobolkuba ay weydiiyeen madaxweynuhu markiiba uu ka soo jawaabay gaadiidkii baa ka mid ahaa deerkii baa ka mid ahaa dhismayaal lagu kordhinaya ka mid ahaa garoomada rooga ay cagaarani way ku jiraan iminkii qorshaysan yihiin miisaaniyadana way ku jiraan qaybtoodna waa la bilaabay waxa ka go'an xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay horumariso adeega asaasiga ee bulshada gobolka Sanaagna madaxweynuhu si gaar ah ayuu ugu hayaayo halbowlaha Soomaaliland uu yahay uu og yahay reer Sanaag iyo reer Ceergaabo waxaan leenahay mashaariicdan inuu dhagax dhigayno horumarkan waxa laga qabanayo miisaaniyadda qarankuna cirka kama soo dhacdo cashuuraha ku timaada cashuurta waa inaad bixisaan horumarka waa inaad ka shaqeysaan markeedan cashuurta bixisaan xukuumaduna bedelkeeda horumarkaas ay keenaysaa mashaariic kale oo horumarineed oo badanina gobolka way ku soo wajahan yihiin tikada meyd baa la dhisayaa wadadeeda dawladdu ka qayb qaadanaysaa tikadaha yaryar ee xeebaha ku teedsan oo dhan way ka go'antay xukuumadda in la horumariyo waxaanu markaa idinku bushaareynayna in xukuumadda idinka sidnaa inay xukuumaddu diyaar u tahay inay gobolka Sanaag horumariso maamulka gobolka iyo kan degmada mar kale aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay gurigan ha barakeeyo shirkadana sidii lagu la dardaarmay waxaan leenahay daanba faydniye waxba